بسم الله الرحمن الرحيم وعشركي سقالات electrostatics عشركن waxa uu ku saabsan yahay capacitors-ka qodobada casharka uu ka hadlayo hadii soo qadino waxa ugu muhiimsan inaynu qeexno capacitor waxa ay tahay inaynu kala saarno ama aynu tilmaamno construction of capacitor-ka qaab dhismeedka capacitor-ka maxay ka kooban tahay capacitors-ka noocyada capacitors-ka sida loo charging-keega iyo discharging-keeda iyo saameynta capacitor-ku ku leedahay electricity-ga DC-ga iyo AC. Okay, hadaba intaynan casharka bilaabin waxaan doonayaa bal su'aalaha casharka la xidhiidha inaan si weydiino. Su'aalahani marka aynu casharka dhamayno ka bacdi insha Allah ayaa laga jawaabi doonaa. Waxa weeyaan what is a capacitor? Waa maxay capacitor-ku? State the difference between polarized and non-polarized capacitor. waxaad sheegaysaa farqiga u dhaxeeya labada polarized iyo non-polarized capacitor. What is a capacitance? Waa maxay capacitance? State the unit of capacitance. Sheeg halbeega capacitance-ka. Sketch a graph of capacitor voltage with time of charging and discharging. waxaad sawiraysaa graph ku saabsan voltage-ka ama potential difference-ka capacitor-ka iyo time-ka marka uu charge gareysmayo iyo marka uu charge-ka luminayo. State two ways of increasing the capacitor of a capacitance. waxaad sheegtaa laba hab oo lagu kordhin karo capacitance-ka capacitor-ka. State the effect of a capacitor on DC supply. waxaad sheegaysaa saameynta capacitor-ku ku leeyahay direct current-ka ama socodka DC-ga. isku day wixii aad fikira ee aad ka haysato su'aalaha hor intaanad casharka bilaabin kabacdi markaad casharka bilowdana su'aalaha waad ka jawaabaysaa biidmillahi tacaala. jawaabahayga aniga waxaad ka helaysaa casharka dambe insha Allah tacaala. waxaynu ku horeynaa insha Allah tacaala capacitors. waa maxay capacitor? marka la qeexayo waxa la yiraahdaa a capacitor is a device. capacitor-ku waa qalab used in electronic circuits lagu isticmaalo mareegaha electroniga to store charge and energy say u kaydiso charge-ka iyo tamarta yani danabyada kala duwan iyo tamaraha ayaa lagu kaydiyaa. marka capacitor-ku mararka qaar waxa loo isticmaalaa sida bayteriga oo kale marka la charge gareeyo charge-kay kaydisaa iyadana hadhow charge iyo energy baa laga helaa. calaamada capacitor-ku waxay isku egyihiin calaamada bayteriga laakiin waxay leedahay laba cidhif oo isleeg waa symbol-ka capacitor-ka. muuqaal ahaan waxa meelo fara badan baa laga yaabaa inaad ku aragto sida raadiyada iyo TV-yada circuit board-kooda inaad ku aragtaa laga yaabaa muuqaalkaas oo kale qaar kamid ah ayaa muuqaalka leh qaar kamid ah capacitors-ka. qodobka labaad waa construction of capacitor. maxay ka samaysan tahay ama sidee u samaysan tahay capacitor-ku? capacitor-ku marka ugu horeysa it consists of two parallel metal plates. waxay ka kooban tahay laba bileed ama laba birood oo barbara ah parallel ah separated by an insulator. waxa kala qaybiya shay magudbiye ah ama insulator ah oo magaciisa la yiraahdo dielectric. marka channel diagram-kan hadaad u fiirsato labada bir weyn oo faseexa ayaa cidhifkan taala cidhifka kalena bir lamid ah taala dhexdooda waxa ku jira shay insulator ah. insulator-ka waxa la yiraahdaa dielectric. insulator-ka kala qaybiya labada blades ama two metal plates labada blades insulator kala qaybinaya ayaa la yiraahdaa dielectric. labada hareeraha waxa ka yeelana waa metal plates the connections-ki ama wayradii ku sii xiriirsanaana labada cidhif bay ka xidhiidhiin. sida aan hore u tilmaanay waxaan niri hareeraha labada cidhif waxa yeela waa metal plates marka waa parallel. labada birood waa parallel. labada birood mar hadday bira yihiin waa conductors waa gudbiyayaal. dhexda waxa ku jira waxaan niri waa material ah insulator. shape insulator ayaa dhexda ugu jira. insulator-ka magaciisa waxa la yiraahdaa dielectric. waa magaca insulator-ka kala qaybinaya labada blade ee capacitor-ka. okay, qodobka saddexaad waa capacitance.
capacitance-ku waa xaddiga qaadka ah xaddiga charge-ka ah ee ay kaydin karto capacitor-ku waayo capacitor-ku waxaan nidhi waa qalab kaydiya charge iyo energy marka amount-ka energy-ga kaydin karto ayaa la yidhahdaa capacitance. Capacitance is the ability of a capacitor. Capacitance-ku waa awoodda capacitor-ka to store charge ay ku kaydin karto charge-ka awoodda ay u leedahay inay charge-ka kaydiso. Capacitor kasta waxay leedahay potential difference bay leedahay mar haddii cirifna yahay plus cirifna yahay minus capacitor-iska labada bileed midna hadii jeer wuxuu noqdaa plus midna waa minus marka waxay shay kasta oo labadiisa cirif plus iyo minus ay kala yihiin wuxuu yeeshaa potential difference. Potential difference kana dee v baa loo qoraa hore inuu soo aragnay. Okay haddaba haddii aynu soo qaadano bal matalan table-ka balada u fiirso table-ka waxaynu ku haysanaa charge-ka capacitor-ka dhowr jeer hal capacitor charge-kiisa oo kala duwan iyo potential differences-kiisa. Matalan haddii uu charge-ku ahaa 160 potential difference-kiina waa 20 haddii labadaa la isu qaybiyo charge-ka iyo potential difference-ka waxaa ka soo baxaa waa 8 laba kasta oo la isu qaybiyo halkan table-ka waxa kaaga soo baxay waa 8 macnaheedu waxay ka dhigan tahay markaad hal capacitor hayso haddii charge-ka la bedelo potential difference-kuna wuu isbedelaya laakiin isku qaybintooda isma bedelayso marka charge-ka oo loo qaybiyo potential difference-ku waa constant-ka lefterkiisa ayaa la yiraahdaa capacitance marka charge-ka oo loo qaybiyo potential difference-ka capacitor-ku waa constant waa wax aan isbedelayn constant macnaha waa markaad capacitor gaar ah haysto capacitor gaar ah haddii aad charge-kiisa bedesho potential difference-kiisa uu isla bedelayaa laakiin labadaa markaad isu qaybiso mar kasta qiimo isku mid un bay ku soo baxayaan. sidaa daraaddeed waxaa la yidhaahdaa maadaama oo uu charge divided by potential difference constant noqday constant-kii wuxuu noqonayaa capacitance-ka. Capacitance-ku marka waa charge-ka oo loo qaybiyey potential difference marka calaamada loo bedela capacitance-ka c baa loo qoraa charge-kana waa q potential difference-na waa v capacitance-ki marka waa q divided by v. halbeegii wuxuu noqonayaa coulomb per volt waayo the charge-kiina waa coulomb potential difference-na waa volt marka halbeegii capacitance-ku marka hore wuxuu noqonayaa coulomb per volt laakiin halbeega lagu bedelay ee la qaatay waa farad ayaa halbeega lagu bedeshay. Okay halbeege yar baa jira marka oo la isticmaalo farad waa halbeeg aad u weyn marka halbeegada la isticmaalo waxa kamid ah microfarad iyo millifarad iyo kuwa kale oo fara badan sida nanofarad oo kale waa la isticmaalaa. Microfarad calaamadaas loo qoraa calaamada yar lefterkeeda de micro baa la yiraahdaa marka microfarad waxay ka dhigan tahay 10 power minus 6 farad millifaradna waxay ka dhigan tahay 10 power minus 3 farad marka powerka waxay iska wataa coefficient-ka yar micro markasta waa 10 power minus 6 millina markasta waa 10 power minus 3 marka conclusion-ka qaybtana waxa weeyaan capacitance-ku waa charge-ka oo loo qaybiyo potential difference ama c equal q divided by v. Okay su'aasha meesha taala waxa weeye ma la kordhin karaa capacitor-ka capacitance-kiisa jawaabtu waa the capacitance of a capacitor increases capacitance-ka capacitor-ku wuu kordhayaa capacitance-ka maxaynu nidhi waana maskaxdaada ku jira capacitance-ku waa the ability of a capacitor to store charge waa awoodda capacitance-ku leeyahay inuu kaydiyo charge-ka awoodda ma la kordhin karaa haa haddii shuruudahan la helo. Number 1 the area between metal plates increases area-da labada bileed ama labada birood u dhaxaysa haddii ay korodho area-da la inoo sheegayaa dabcan labadii birood haddaan idhaahdo 2 metal plates-ki waa kuwan the area-da dhexdooda hadday aad area-da goorma la kordhin karaa marka labada birood saa u dhaadheer yihiin area-da dhexdooduna way badanaysaa. 2 distance between plates decreases labada bileed distance-ka u dhaxeeyana ay soo yaraato oo hadii iyagii isku soo dhawaadaan waxoogaa labadii bilood ay isu soo dhawaadaan marka distance-kii labada u dhaxaysay baa yaraanaysa. 3 insulator is a solid rather than air insulator-ka halka ku jira uu yahay shay solid ah oo aanu hawo ahayn. 3 haddii marka la helo waxa kordhaya capacitance-ka maxaan ku yiri kow waa in area-da labada bilood dhexdoodu ay badataa oo ay korodhaa distance-ka labada bilood u dhaxeeyana
waa inay yaraataa. That means waa inay labadii blade isku soo dhawaadaan dhexda waxa ugu jiraan insulatorkaasina waa inuu ahaadaa shay solid ah, waa inuu ahaadaa. Okay, qodobka aynu ka hadalnayna waa capacitance. Hadda waxaynu ka soo hadalnay capacitorka definitionkiisa oo aynu nidhi waa qalab maxay sameeya kaydiya charge-ka iyo energy-ga. Construction-ka muxuu ka samaysan yahay laba blade oo metalisa, dhexda maxaa ugu jira insulator. maxaa la yiraahdaa insulatorka dielectric. waxaanu ka hadalnay capacitance oo aynu nidhi waa maxay waa awoodda capacitorku uu ku kaydin karo charge-ka iyo energy-ga. Okay, waxaanu u gelaynaa types of capacitors, noocyada capacitors-ka. noocyada capacitors-ku way fara badan yihiin, laakiin generally sidee loo qaybiyaa, qaab guud oo loo qaybiyaa jira. waxaa ka mid ah matalan group ama qayb ka mid ah laba qaybood oo ka mid ah waxa loo kala saaraa waa polarized iyo non polarized capacitors. Polarized waxa laga wadaa waa capacitorska booliska leh, waxay leeyihiin laba cidhif oo midna yahay plus midna yahay minus. Non polarized kuna waa kuwa aan plus iyo minus kala lahayn. laba cidhif way leeyihiin laakiin labada cidhif ma laha plus iyo minus. dhinacii la doono ayaa circuit-ka loogu xidhi karaa, laakiin kuwa polarized-ka plus iyo minus bay leeyihiin. marka pluskooda haddii battery lagu xidhiidhinayo waa in pluska batteryga lagu xidhiidhiyaa, minuskoodana waa in lagu xidhiidhiyaa minuska batteryga. labada calaamadood bay kala leeyihiin. tani waa unpolarized type, waa nooca unpolarized-ka ah. plus iyo minus toona ma kale leh. kuwana waa polarized type, waa nooca polarized-ka ah. design aragnana waxay kala leeyihiin plus iyo minus. marka waxaan leenahay polarized capacitors have negative and positive terminals. nooca polarized-ki waxay leeyihiin laba cidhif oo midna yahay negative midna yahay positive. laba terminal bay leeyihiin ama laba cidhif oo midna yahay negative midna yahay positive. laakiin non polarized capacitors have no fixed terminals. kuwa non polarized-ki male cidhifyo fixed ah ama cidhifyo cayiman oo go-an oo la sheegi karo male. waxaa kaloo loo qaybiyaa laba qaybood ama laba qaybinood oo kale ay leeyihiin oo ah fixed and variable capacitors. capacitorska kuwa fixedka ah iyo kuwa variable-ka. maxaa laga wadaa? fixed waxaa laga wadaa waa qaar amountka charge-ka ee ay kaydinayaan aanu isbedelaynin, lama bedbedeli karo value, qiimo go-an bay leeyihiin, intaasoo go-an oo charge bay kaydin karaan. variable waxa weeye xaddiga charge-ka kaydin karaa, marna waa la badin karaa marna waa la yareyn karaa. waxaa la yidhaha nooca variable capacitors. iyaguna labada calaamadood bay kala leeyihiin. kuwana waa fixed value capacitor, waa capacitors fixed value labada line isku toosan bay leeyihiin. kuwana waa variable capacitor, xataa tan waad ka dhigi kartaa variable capacitor oo calaamadda had iyo jeer variable-ka lagu yaqaano waa wixii line-ka saa loo dhex mariyo. line haddii saa loo dhex mariyo shaygu variable bay isku bedelaya. Fixed capacitors have a fixed value of a capacitance. Fixed capacitorsku waxay leeyihiin qiimo sugan oo capacitance ah ama qaadkoodu wuu sugan yahay, waa fixed. Variable capacitorsku laakiin their capacitance can be varied. Capacitaneskooda waa la bedbedeli karayaa. Common types of capacitors. noocyada inta badan aynu naqaano ama iska caanka ah ee capacitorska horta muuqaal ahaan gabiya intaasoo dhan ama noocyada adarkasoo dhan waa capacitors kala duwan. waa noocyada caanka ah ee capacitorska. sida aynu garanayno capacitorska waxaa lagu dhex isticmaalaa circuit board-ka radioda, TV-yada, mobile-lada, waxa la wixii electronic ku shaqeeyo dhan waa laga soo dhexelaya circuit board-kooda laga soo dhexelaya capacitorska. haddaba adiga arkaya muuqaalkaasi. haddaba common typeska ama noocyada caanka ah ee capacitorska waxaa ka mid ah nooca la yidhahdo ceramic capacitors. muuqaalkaasoo kale leeyihiin runtii materialka dielectric ay ka samaysan yihiin baa ah walax ceramiga, waana polarized noocani. polarized maxaynu ku tilmaamnay? waxay leeyihiin positive iyo negative. marka pluskoodana waxaa lagu xidhayaa pluska batteryga, minuskoodana minuska batteryga, haddii kale damage baa soo gaadhay. nooc labaad baa jiro la yidhaha electrolytic capacitors. inta badan waxaa loogu magac daraa dielectrigooda. kuwana dielectrigooda ayaa electrolytic ah. dielectrigu waa solidka gudaha ugu jira, insulatorka gudaha ugu jira ayaa la yidhaha electrolytic capacitor.
noocan iyaga laftirkoodu waa polarized oo iyaga laftirkoodu waxay leeyihiin two poles ama two fixed terminals plus iyo minus bay leeyihiin nooc saddexaad baa jira la yidhaha film capacitors iyaguna muuqaalkaasay leeyihiin noocani waa non polarized dhinacii la doonaba bayteriga waad ku xidhan kartaa dhinac alla dhinacaad ujeedisa bayga way ogol yihiin charging and discharging capacitors charge garaynta iyo charge luminta capacitorska to charge a capacitor si capacitorka loo danabeeyo ama charge loo siiyo what must be done maxay tahay in la sameeyo marka hore maxaa la sameynaya it must be connected to a DC power supply waa in lagu xidhiidhiyaa power supply ama dabqaybiye DC hadda eeg dabqaybiyaashu waa laba ama waa AC ama waa DC shardigu waa in DC lagu xidho marka that means waa in battery lagu xidho DC gu waa battery waa in battery lagu xidhaa okay electrons are stored in one plate dhinaca electronadii baa ku kaydsamaya waa dhinaca electronadu ay tegayaan dee dhinacna way ka dhinaca electronadu ay u soconayaan electronadii baa ku kaydsamaya and the other there is a shortage of electrons dhinaca kalena electronadii baa ka tegaya dee balaskan batteryga ayaa electronad ka soo jiidanaya uu ka soo jiidanaya electronadii dhinacna dee minuska batteryga electronada repulsion buu ku sameeyaa marka xaggaas isugu wada tegayaan electronadii markay electron dhinac ku kaydsamaan dhinacna ay ku shortage of electron ay noqoto protona ku kaydsamaya marka wuxuu noqonayaa charged mar hadduu yeeshay potential difference dhinacna uu minus noqday dhinacna plus wuxuu yeeshay potential difference when the PD of the plate is equal to the PD of the source the current stops flowing marka potential difference ka labada blade waa capacitorka labadiisa blade uu leegaado potential difference ka source-ka waa meesha uu ka helayo charge-ka sida batterygan iyo capacitorka labadiisa blade markay isku potential difference noqdaan the current stops flowing current uu joojinayaa socodkii qulqulkii uu istaagaya markaa that means capacitorku inta uu charge garaysmayo buu qulqulkaasi soconayaa marka uu charge garaysmo qulqulkii uu istaagaya markaa uu istaagaya okay waxa la yiraahdaa marka uu charge garaysmayo capacitorku hadii la sawiro potential difference-ka iyo time-ka uu ku charge garaysmayo graafkiisu muuqaalkaas u yeeshaa marka charge-ka uu luminayo hadii la sawiro potential difference-kiisa iyo time-ka uu ku luminayo charge-kana graafkiisu muuqaalkan u yeelanaya marka labada graaf isku rate maaha rate-kooda ayaa kala duwan rate-ku waa potential difference-ka iyo time-ka oo la isu qaybiyay kala rate bay noqonayaan marka waa muuqaalkoodu soo u kala duwan yahay wuxuu sheegayaa rate-kooduna inuu kala duwan yahay ugu dambeyn waxaynu ku soo gabagabeynaa effect of capacitor on DC and AC supply saameynta capacitorku ku leeyahay DC-ga iyo AC supply DC-gu waa direct current AC-guna waa alternating current marka waxa la yiraahdaa imika hadda circuit-ka u fiirsato capacitor baa ku xidhan battery-na uu ku xidhan yahay xabad yar oo laambadina way ku xidhantay laambadu laakiin ma shidna sababta oo ah waxa la yiraahdaa capacitorsku waxay joojiyaan current-ka DC-ga ma ogola inuu socdo way markaa iyaga charge-ki qaadanaya dabadna in yar dabad buu charge garoobayaan block laambadii markaa ma shidna soo u joojinayaan current waxa la yiraahdaa capacitors block DC capacitorsku way joojiyaan direct current-ka halkan hadaad u fiirsato alternating current ama AC ba halkan noo calaamadda AC ku calaamadda area wave-ka AC ba halkan inoo yaala laambadii way shidan tahay sababtu waa maxay capacitors pass AC capacitorsku way gudbiyaan AC-ga DC-gana way joojiyaan AC-gana way gudbiyaan sababta AC-ga u gudbinaya waxa weeye alternating current-ku marna dhinacan u socda mar dhinacan u socda marka mar uu charge garaynayaa marna charge-kii buu luminayaa markuu current-ku xaggan u socdana uu charge garaynayaa markuu ka soo noqdana charge-kii buu ka luminayaa marka mar walba current-ku uu soconaya waa charging iyo discharging laakiin capacitorka dhexdiisa ma marayo current-kaasi waayo dhexdiisa maxaa yaala insulator dielectric-giisu waa insulator